sida aynu maalmahan ka warramaynay Mareykanku waxa uu gobolka bariga dhexe gaar ahaan badbadeedyada mandiqadaas ka wada dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan kuwa oo u muuqda inuu isugu diyaarinayo dagaal toos ah ama howlgal gaadmo ah oo uu midkood ku qaado Iiraan. haddaad la socoto xogaha aynu halkan ku baahino maraakiibta dagaalka ee loogu yeero The Strike Group ee uu ugu weyn yahay markabka diyaaradaha xambaara kan loogu yeero Abraham Lincoln ayaa maalmo ka hor madaxweynaha Mareykanku ku amray inuu u dhaqaaqo biyaha badweynta Hindiya ee bariga dhexe. tani waxay si dhab ah u xoojisay dareenka la xiriira jiritaanka duulaan Iiraan ka dhana oo Mareykanku si rasmi ah isugu diyaarinayo. maalmo ka hor talaabadan sidoo kale Mareykanku waxa uu xoojiyay difaacyada ka hortagga madaafiicda ee saldhigyada dalkani ku leeyahay bariga dhexe oo xoguhu wariyeen in si weyn loo xoojiyay difaacyadooda madaafiicda halka sidoo kale la kordhiyay tirada gaadiidka dagaal ee ku sugan saldhigyada Mareykanku gobolka ku leeyahay. shabakad wareedda The Times of Israel ayaa faallo ay dhowaan baahisay ku sheegtay in isdiyaarinta Mareykanka ee gobolku qusayso yaraynta khatarta ka iman karta haddii Tehran dareento halis ka dhana hoggaanka dalkaas. waxay faalladeeda shabakadani ku xustay in Iiraan beegsan karto hantida Mareykanka ee gobolka, dhibaatayn karto xulufada dalkan ee Israel, sidoo kalena si taabasho leh u carqaladayn karto isu socodka tamarta adduunka, taasoo ka dhigan in Iiraan xiri karto gacanka Hormuz ee uu maro 5 meelood meel shidaalka caalamku. isdiyaarinta ciidan ee Mareykanka ayaa faalladani ku qeexday mid ujeedadeedu tahay yaraynta khataraha ducahan ka dhanka ah ee Iiraan ka iman karta kadib fulinta nooca tallaabo ee Mareykanku Tehran la damacsan yahay. khubarada darsaysa dhaqdhaqaaqa Mareykanka ee bariga dhexe ayaa laga xigtay inaan cududa ciidan iyo hubeed ee maalmahan Washington gobolka geesay ku filayn duulaan toos ah oo dalkani la galo Iiraan. waxaase si weyn loo odorosayaa in dhaqdhaqaaqyadani yihiin kuwo lagu jihaynayo indhaha warbaahinta iyo falanqeeyayaasha ee uu socdo qorshe kale oo Mareykanku doonayo in uu Tehran ku wajaho, kaasoo ka cabsi iyo halis badan baa la yiri duulaan toos ah. qorshahaas oo la tuhmayo inuu noqon karo howlgal qarsoon la mid ah kii Venezuela oo Washington doonayso inay ku beegsato hoggaanka sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga. haddaad isweydiinayso suurtagalnimada tan, xasuuso in bishii Juun dagaalkii 12 maalmood bilowgiisii Israel oo sirdoonka Mareykanka kaalmo ka helaysa gudaha Iiraan ku toogatay tiradii ugu badnayd ee saraakiisha ciidamada Iiraan, halka diyaaradaha B-2 Bomberska loo yaqaano ee Mareykanku fuliyeen howlgal la sheegay in lagu burburiyay warshadihii hubka nukliyeerka ee Iiraan, taasoo kordhinaysa suurtagalnimada howlgal khaas ah ka dhana hoggaanka Iiraan oo ducahani mar kale fulintiisa isku dayi karaan. dhinaca Iiraan, wararku waxay sheegayaan inuu sidoo kale socdo diyaar garow ballaaran oo military. xogaha qayb ahaan ayaa wariyay in 16 diyaaradood kuwa xamuulka ee agabyada ciidan qaada oo Shiinuhu leeyahay dalkaas cago dhigteen 56 saacadood gudahood, kuwa oo khubaradu rumaysan yihiin inay wadaan madaafiic, drones iyo hub casri ah. digniinaha duulimaadyada hawada ee gobolka ayaa istarayay saacadihii dhowaa. xogaha Israel ka soo baxaya waxa ay tibaaxayaan in xiisadu labalixaadsan karto maalmaha dhow, iyadoo la rumaysan yahay inaan xaaladda bariga dhexe u muuqan haatan mid dagaal ka baaqsan karta. isweydiintuna markaan waxa ay joogtaa nooca dagaal ama howlgal ee la filan karo, iyadoo aan si dhaba loo odorosi karin waxa natiijadu noqon doonto.